kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online waa 8 bisha tobnaad sanada 2020 ku soo dhawaada wararka 24 saac ee All Banaadir Online qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah qarax qasaare kala duwan dhaliyo oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan qaraxaas diyaarado dagaal ayaa duqeymo culus ka furiyay deegaano miyiga oo ku yaala gobolka Gado iyadoo dhawaanahan ay soo badanayeen tacdiyada ciidanka Kenya ee gobolka Gado wada hadaladii ahlu sunna iyo galmudug oo dib loo ambaqaaday iyo madaxweynaha galmudug oo ballan qaaday in wax walba wada hadalka lagu dhamayn doono akhbaraadka caalamka warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dad shacab ah oo lagu laayay dalka Burkina Faso daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararka 24 saac ee All Banaadir Online imikiyatan u diyaar garooba iyagii oo inta ka faahfaahsan diyaarado dagaal ayaa duqeymo ka fuliyay qaybo kamid ah gobolka Gado iyadoo qasaare kala duwan ay duqeymahaas ka dhasheen warar dheeraad ayaa waxa laga helayaa duqeymo diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen gudaha gobolka Gado duqeymahan oo ahaa kuwa culus ayaa diyaaraduhu waxay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada magaalada Balad Xaawo iyo sidoo kale Garbaharey ee gobolka Gado ila waradii deegaanka ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in duqeymahaas ay si gaar uga dhaceen deegaanada Balliga Harakoobe Yaaqle Qabriga Xaaji iyo Balliga Dhadhaable wararkaanu helayna ayaa intaasi ku daraya in uu jiro qasaare dhimasho mid dhaawac balse ma cadda inta uu gaarsiisan yahay qasaarahaas sidoo kale lama ogo haybta diyaaradaha geystay weerarkaas ka dhanka ah oo dhinaca cirka ah balse waxaa loo badinayaa in ay yihiin kuwa Kenya oo inta badan duqeymo ka fuliya gobolka Gado dhammaan deegaanada la duqeeyay oo ah kuwa miyi ah ayaa waxaa degan dad rayd ah isla markaana xoolo dhaqato u badan ciidanka Kenya ayaa toddobaadadii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo military waxa ay ka wadeen gobolka Gado halkaas oo ay ka geysteen tacdiye ka dhan ah bani'aadanimada shacabka gobolka Gado ayaana dhiga barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan tacdiyada joogtada ah oo ciidanka Kenya ay u geysanayaan dadka rayidka ee ku sugan gobolka Gado ilaa iyo hadda wax wara kama aysan soo bixin maamulka Gado duqeymaha saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo kamid ah gobolkaas waxaana jiray in dhawaanahanba uu jiray qayladhaan ka soo yeeraysa shacabka oo ku aadan in la bixiyo ciidanka Kenya ee xadgudubyada ka dhanka ah shacabka kula kacaya dawladda Soomaaliyana si dhab ah wali ma aysan kaga hadlin ciidankaas Kenya tacdiyada ay ka geysteen waqtiyadii la soo dhaafay gobolka Gado inkastoo maamulka Jubbaland uu shaaciyay in halkaas loo diri doono guddi qiimeyn ah kuwaas oo soo baara dhibaatooyinka ciidanka Kenya lagu eedeeyay in ay ka geysteen gobolka Gado inkastoo maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado uu arintaas ka hor yimid guddigaasna ay sheegeen in uu hogaaminayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan kaas oo ay sheegeen in uu yahay nin aanan mas'uuliyadda qaadi karin sidoo kalena ah nin aan la aamini karin waxayna gabi ahaanba ka soo horjeesteen in Jubbaland ay guddi u saarto dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Gado ciidanka Kenya ayaa sidaan oo kale dhowr jeer waxay duqeymo kaga fuliyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Gado duqeymahaas ayaana inta badan waxa ku waxyeelooba dad rayd ah kuwaas oo ah kuwa xoolo dhaqata waxba aanan galabsan balse deegaanada hadda ciidanka Kenya ugu dambeeyay ee duqeymahaas ka geysteen ayaa dhammaantood ah kuwa miyiga waxaana degan dad xoolo dhaqata kuwaas oo aan lug ku lahayn al-shabaab qarax qasaare kala duwan dhaliya ayaa ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wararkaanu ka heleyno gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in qarax qasaare geystay uu ka dhacay qaybo kamid ah degmada Afgooye ee gobolkaas kaas oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso qaraxan ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay bar control oo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin halka loo yaqaano Baar Ismaaciil inta la xaqiijiyay waxa qaraxa ku dhaawacmay ilaa iyo 2 qof oo kala ahaa darawal mooto bajaaj iyo sidoo kale askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo halka ka agdhawaa sidoo kale ciidanka ammaanka ayaa waxay xireen meesha ay wax ka dhaceen kuwaas uu sameeyay baaritaano la xiriira qaraxaas iyo cidda ka dambeysay ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga ee maamulka degmada uu ku aadan qaraxaas ka dhacay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose inta badan al-shabaab ayaa waxay weeraro kala duwan ka geystaan oo ay ku jiraan qaraxyo gudaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kalena deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka ayaa al-shabaab weeraro toos ah iyo qaraxyo ay ka fuliyaan xilliyada qaar waxaana ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmooyinka ay wax ka dhacaan ay bilaabaan howlgallo baaxad leh kuwaas oo marka ay sameeyaan kadib ay ku soo qabtaan dad isugu jira kuwa ay kaga shakisan yihiin iyo kuwa kale inkastoo marka dambe ciidanku ay kala soocaan Baar Ismaaciil waxa uu kamid yahay kontaroolada ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku badan yihiin oo ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana halka ay ku baaraan gaadiidka kala duwan ee ka yimid Afgooye iyo kuwa galaba lamana oga qaraxan iyo waqtiga ay suurto gashay in meeshaas la dhigo inkastoo ciidanka dawladda Soomaaliya ay bilaabeen howlgallo xoog leh kuwaas oo lagu baadigoobayo cidda ka dambeysay qaraxaas waxaana jira tiro dad ah oo u badnaa dhalinyaro oo ciidanku ay soo qabteen
inkastoo sida aan warka ku helino qaar ka mid a dhallinyaradaas laga sii daayey xabsiyadii la geeyey waxaana jira qaar kale oo ilaa iminka baaritaano ay ku socdaan saraakiisha laamaha amniga degmada Afgooye ayaana la filayaa goorta ay soo gabagaboobaan baaritaanadaas in ay ka hadlaan qaraxaas iyo cidda ka dambeysay iyo waxa dhaliyayba maalmihii ugu dambeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa aad u adkeynayay amniga guud ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana dhawaan halkaas ka guuray ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo muddo sanad ah fariisimo ku lahaa degmada Afgooye qaybo kamid ah iyagoona u guuray qaybo kale oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Shabeellaha Hoose ayaana waxa inta badan ku dagaalama ciidanka dawladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM iyo xubno ka tirsan al-shabaab wuxuuna ka mid yahay gobolada ay aadka ugu xoogan yihiin al-shabaab oo dawladda Soomaaliya dhowr mar ay ka dhawaajisay in howlgalo ballaaran ay ka bilaabi doonto gobolka kuwaas oo ka dhana al-shabaab ilaa iminkana ma jiraan howlgallo guuleystay oo ciidanka dawladda Soomaaliya ay ka bilaabeen gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo ka dhana al-shabaab inkastoo wax walba hadal oo dawladda Soomaaliya ay soo saartay ay noqdeen kuwa aan dhaqagelin ciidamada ugu badan ee militariga Soomaaliya ayaana fariisimo ku leh gobolka Shabeellaha Hoose wada hadaladii Galmudug iyo Ahlusunna ayaa dib u bilowday iyadoo dhawaanahan uu soo baxay khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale jeneraal ka tirsanaa hogaankii hore ee Ahlusunna madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa mar kale bilaabay wada hadallo cusub oo uu la galayo hogaanka maamulkii gobolada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaaca madaxweyne Qorqor ayaa waxa uu kulan gaar ah qasriga madaxtooyada Galmudug kula qaatay Sheekh Cabdirasaaq Al-Ashcari oo ka mid ahaa xubnaha sarsare ee Ahlusunna kulankan oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen isla markaana qaatay saacado badan ayaa waxa looga hadlayay arrimo xasaasi ah gaar ahaan sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen labada dhinac sida ay noo sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sidoo kale waxa kulankan uu ahaa mid bilow ah wada hadallo cusub oo yeelan doonaan hogaanka Ahlusunna wal Jamaaca iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedka Galmudug wararka aanu helayno ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in madaxweyne Qorqor iyo Ashcari ay ku ballameen kulamo kale si loo sii amba qaado wada hadallada labada dhinac Ahlusunna wal Jamaaca ayaa muddo ka talinaysay gobolada dhexe waxaana dagaal looga saaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kadib markii ay ku hor yimaadeen dhismaha maamulkii Galmudug ee loo soo doortay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor si kastaba ahaatee Qorqor ayaa hore u ballan qaaday in uu wada hadallo la furi doono cid kasta oo ka soo horjeeda maamulkiisa si uu uga shaqeeyo dib u heshiisiinta madaxda Ahlusunna oo qaarkood ay ka maqan yihiin magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaanba dalka ayaa xilligan waxay noqonaysaa in madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu wada hadal la furayo Ashcari ayaana ka mid ahaa madaxdii ugu sarreysay maamulkii Ahlusunna ee meesha ka baxay waxaana hadda wada hadalladan ay noqonayaan kuwo bilow ah wada hadallo toos oo dhexmari doono hogaanka Ahlusunna iyo sidoo kale madaxda maamulka Galmudug ugu sarreyso oo ugu horeeyay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxyaabay la isku qabtay hogaanka Ahlusunna iyo maamulka Galmudug ayaana waxa ka mid ahaa in xildhibaano ay leeyihiin Ahlusunna la siiyo waxaana xildhibaanadaas ballantii kaga baxay sida la sheegay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ee xilligaas qof walba ayaan isweydiinaya sida ay suurtagal ku noqon karto heshiis dhexmara madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale hogaanka Ahlusunna kuwaas oo dagaal laga saaray magaalada Dhuusamareeb daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo la socotaan wararka 24 saac ee All Banaadir Online imikii haatana akhbaraadka caalamka koox hubaysanaya dad waxay ku laysay qaybo kamid ah dalka Burkina Faso kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen 10 ruux oo doonayay in ay dib ugu soo laabtaan guryahooda ayaa lagu weeraray gudaha wadanka Burkina Faso koox hubaysanaya istaajisay gawaarida ay la socdeen kadibna waxa ay si gooni ah u kala sooceen raggii la socday gaariga iyagoona meel gooni ah geeyay kadibna halka ku toogtay qaramada midoobay oo weerarkaasi warisay ayaa raggaas la dilay waxa ay sheegtay inay gaarayeen 25 ruux weerarkan ayaa galikii dambe xaddi waxa uu ka dhacay meel 9 kiiloomitir u jirta magaalada Bisila ee dalka Burkina Faso sidoo kale hay'adda UNHCR ayaa waxay shaaca ka qaaday in kooxda weerarkan soo qaaday ay sii daayeen haweenkii iyo carruurtii la socday kolonyada gawaarida ah balse ay halkaasi ku toogteen raggii gawaarida la socday oo aan si kala sooc lahayn ay ula dageen dhammaantood dalka Burkina Faso ayaa waxa ka dhac weeraro ay geystaan kooxo jihaadoona sida ay shaaca ka qaaday dawladda dalkaas waxaana tiro dhowr jeer ah dhacay weeraro lagu laayay dad shacab ah waqtiyadii ugu dambeeyay aanu soo dhaafnay dalka Burkina Faso ayaa waxa ka dhacay xadgudubyo ka dhan ah bini'aadanimada kuwaas oo qaarkood lagu eedeynayay ciidamada dalka Burkina Faso halka kuwa kalena ay geysanayeen kooxo la sheeganayeen jihaadoon oo ka jira galbeedka wadanka Burkina Faso waxaana sidaan oo kale dhowr jeer dad rayd ah lagu laayay gaadiid ay la socdeen gudaha wadanka Burkina Faso ciidamada wadanka Burkina Faso ayaa waxay maaro u laayihiin kooxaha hubaysan ee dalkaas ku badan kuwaas oo dadka si bareer ah u kala sooco kadibna u laaya kooxaha qaar ee dalkaas ka dagaalamo ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ka gadisan kuwa kale marka loo eego badbaadinta haweenka iyo carruurta
kooxda hadda dadka laysayna waxaa la sheegay in ay sooceen haweenkii iyo carruurtii gaadiidka saaraa kuwaasoo ay u sheegeen in ay yihiin fasax oo ay bixin karaan balse raggii oo 25 gaarayay ayay gebi ahaanba dileen si kala soc la'aana Burkina Faso ayaa xaaladeedu waxay dhawaanahan ahayd mid murugsan maadaama meelaha qaar ay gobolada dalkaasi ku badan yihiin kooxaha sida bareerka dadka u laynaya waxaana dawladdu xilligan ay dejinaysaa qorshooyin laga hortagayo kooxahaas dadka sida bareerka u laaya daawadayaal intaasi waxaa ku dhan wararka 24 saacadood kala socoteen All Banaadir Online waad ku mahadsantihiin la socodkii la saanqaadka warkeena